mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka togdheer ayaa xadhiga ka jaray xafiis deegaanka xisbiga kulmiye deegaanka qurac dheer ee magaalada burco ay ka furteen ugu horeyn qaar ka mid a taageerayaasha xisbiga kulmiye deegaanka qurac dheer ee waqooyiga magaalada burco ayaa sheegay inay taageersan yihiin xisbiga kulmiye laga furay guriga maanta la yaha muuqdheer waana magaalada qurac dheer xusbiga waxaanu ku soo dhaweynaynaa gurigan xusbigaanu ku soo dhaweynaynaa waanu diyaarinay muddo imika laga joogo ilaa 2 bilood ayuu diyaar u ahaa maanta waanu hambaliyaynaynaa mar hadday gurigii noo fureen nooguna yimaadeen waanu hambalaynaynaa waana ku soo dhaweynaynaa waxaanu taageersanahay xusbiga kulmiye mas-uuliyiin ka socotay xisbiga kulmiye ayaa u mahadnaqay taageerayaasha xisbiga kulmiye sida iskooda u furtay xafiiskani aad iyo aad u soo dhaweynaya dadweynaha reer qurac dheer sida laxaad kale ee fiican ee qalbiga wanaagsan ugu soo dhaweeyey maanta muujiyey inay diyaar u yihiin xuduudooda kulmiye ay ku doortaan soo xusbiga kulmiye ma nihin xusbiga kulmiye ma nihin kulmiye ha noolaado ha guulaysto aad iyo aad waxaan u kalsoonahay inaad tihiin xusbiga inaad caddayseen mabdi'iinnii in aad kulmiye dhaatay tihiin waanu idinku kalsoonnahay waanu idinku mahadnaqaynaa waxaanu leenahay wax yarba waqtigii nooga hadhay kaadhaka hala ilaashado waxaan maqlayn kaadhaka dad badanay ka mushtareynayaan aad waxaan idinka digaya inaad kaadhakiina ilaashataan inaan kaadhakiina ciidan aanay farafaraynin waa masiirkiinnii waa muqaadilnimihiinni waa doorashooyinkii hadhay ee ka deegaanka iyo ka baarlamaankaba labadaba kaarkaasa haystaan ayaa xukumaya kaadhakiina ilaashada maalinta codka fartiinna yaa maalinta codka kulmiyaale mahad cali goodir star TV burco.